waxaa magaalada London lagu soo dhaweeyay madaxweynaha dawlad goboleedka Mareeg State Dayib Maxamuud Sheekh oo ay la socdeen aasaasihii Mareeg State Maxamed Xaaji Cali iyo madaxa haweenka qurba joogta Mareeg State Faadumo Cali Warsame waxaana ay dhamaantood ka soo laabteen wadankii Soomaaliya oo madaxweynaha lagu soo caleema saaray waxaa soo dhaweynta ka mid ahaa mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Mareeg State iyo taageerayaal badan oo qurba joog ah waxayna si aad u soo dhoobteen garoonka weyn ee Heathrow oo ku yaala magaalada London iyaga oo ku soo dhaweeyay madaxda ubaxyo calamo ay ka mid yihiin midka Mareeg State iyo calankii Soomaali weyn qaar ka mid ah madaxda Mareeg State oo elboorka ku soo dhaweeyay madaxweynaha ayaan dhowr su'aalood ka weydiiyay maamulka iyo qaybta iyagoo ay ka hayaan waxaan isleeyahay shaqada haysaan inaan qabto loo baahan inay tahay mid adag waana mid laf dhabarka u ah shaqada ugu muhiimsan ee state-ku uu yeelan doono waa in aan development and design-keedii keeno iyo project-ii ku saabsanaa dekadda weyn ee laga furi doono ee dhulkaas Mareeg State والله مر لبعض وحنا الحمد لله وحن آد وفرح سنهاي قاب كاللورد السي وحكوت الساي مدة إقاذتي وحنا قد من أوتي الله أنا هاي المجران الحمد لله وحوين أي سكورين إيسا لندن وماش اللغو أساسي النظام كإمام معاني ما أنت أوجده وحي وحكا كوردين دونتا وحوال دينا دغالها دينا فكردا دينا ايديولوجيدا دينا اسكو خيرك بلشدا هذا برنامج waxbarashadu waa elayskii nolosha in aan ku dadaalo sidii aan dadka dhalaanka dhalinyaradii 20 sano u dambeysay dalkeenii hooyo aan iskuulo jaan soo helin oo aan iskuulo waqti u helin inaan u sameeyno waxbarasho waxaan leeyahay Mareeg State sidii aan horeba u sheegay waxa waaye xuduntii ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inay miday doonto ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan degmooyinka iyo gobolada dariska la ah sidaas ayaan rajaynayaa Mareeg State waxa ay ka mid tahay maamul goboleedyada ka jira dhulka Soomaaliya waxaana lagu wadaa inay ka shaqeyso oo waxtar weyn ka gudbiso dhulka iyo deegaanka Mareeg State dabcan Mareeg State waxa lagu aasaasay dalkan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London laakiin madaxda ugu sareysa oo ka mid yahay madaxweynaha ayaa lagu soo dhisay dhulkii Soomaaliya waxaana halkan ugu soo laabteen sidii dardar cusub loo gelin lahaa horumarka iyo maamulka
iyo kor u qaadista tabarta iyo waxtarka Mareeg State. bismillaahi raxmaani raxiim salaamu calaykum howsha u baxay waa howl aad iyo aad u adag waana ku soo guulaysanay dhibkaan soo marnay maasha Allah maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay ma malay kartid waxaan soo marnay maantana aan guul ka wadno insha Allah inta dhimanna ay dhamaystiri doonto after 2 months insha Allah halkan ayaa hawsha ay ka bilaabatay muddo badan la soo waday halkan si dimuqraasiyaha maxaan ku raahdaa codka loo qaaday haday calan tahay haday tahay guddiga maxaan ku raahdaa hawshan wadi lahaa marka kadib waxa la isku raacay in dadkeeni Soomaaliya jira aan ula noqono hawsha si aanan u noqon dad kaligood tashadayaal ah ama dictator ah after that waxa la tagay wadankeeni delegationkii markay wadanka tageen waxa loogu soo dhaweeyay si aan la qiyaasi karin wallahi runtii hadal badan haan ma buuxsho sidii dadkii igu horeeyay ay u sheegeen aad ayaan u ayidsanahay aad ayaan u raacsanahay waxaan u aragnaa mid hirgelin doono siina socon doono haduu Ilaahay idmo Ilaahay nala galab galo wassalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim sida intii igu horeysay ay sheegtay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay state-kan waana mid aan filaynay inay ka imaan doonaan miraha ka soo baxay oo yani qof walba ay maanta ku qanacsan tahay ha ahaadaan dadkii state-ka u dhashay ha ahaadaan dadka dariska la ah sida uu sheegay odageena Sheekh Cali waa meel muhiim ah oo dekada leh oo xuduntii ah oo loo yaqaan gobolada galguduud xeebteeda yani bari ah marka waa meelaha dahan oo aan isleenahay waxay u baahan tahay in nolol laga aasaaso dadka ku dhaqanina ay helaan waxbarasho amaan iyo inta ay dad bini aadanihi u baahan yihiin anigu hadii aan dareenkayga ka hadlo meesha Mareeg State waa meesha aan maaragtay kanimid oo aan anagu ku dhalanay qaasatan waa u baahnay inaan leeyahay dawladnimada iyo waxa aan helnay intaas iyo in la midana waxaan ugu gudbinayaa gabdhaha walaalaheeya anagoo qaban qaabiyaasha kamida salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga waxaan leeyahay Mareeg State inta kaliya oo ku dhalatay Mareeg area maaha dad badan baa u dhashay oo weligood tagin oo arkin haddana diyaar oo aniga aan ka mid ahay haddana diyaar u ah Ilaahay idinkii inay tagaan oo wax ka qabtaan Ilaahay Mareeg State United aan leeyahay Ilaahay hala jiro garabkoodan hagal assalaamu calaykum magacaygu waxa waa Safiyo Cali Raage waxa maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay soo dhaweynta madaxweynaha dhammaan waxa u mahad celinayaa Mareeg State madaxweynaha Maxamed Xaaji iyo dhammaantoodba aad iyo aad aan ugu faraxsanahay farxadaan maanta aan helnay assalaamu calaykum anigoo ku hadlaaya magaca dhalinyarada Mareeg State waxaan leeyahay madaxweynaheena welcome to London noqonkii xilkiisa qaado waxaan rajaynayaa min dhalinyarada Mareeg State kuwa Mareeg jooga iyo kuwa jooga qurbahaba in ay iyo hoo iskula taagnaadaan in ay mar walba isxariiriyaan waxaan mar walba rajaynaynaa in ay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed laf dhabarka ummadda Soomaaliyeed marka waxaan leenahay madaxweynaheena Dayib Maxamed Sheekh welcome to London horta waxaan aad ugu mahad celinayaa telefishinka Universal oo suuro galiyay inuu nagala qayb qaato soo dhaweynta madaxweynaha dawlad goboleedkana ee Mareeg State waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii soo dhaweyntii aad ku fiicneed ee maanta halkan ka dhacday wassalaamu calaykum kadib soo dhaweyntii laboorka magaalada London ee Heathrow lagu soo dhaweeyay madaxweynaha dawlad goboleedka Mareeg State ayaa waxa loo kaxeeyay hotelka Millennium oo ku yaala magaalada London halkaas oo qolka martida kula kulmay dadkii soo dhaweeyay iyo qaar kale oo halka ku sugnaa waxaana uu kaga warramay xaaladda iyo halka ay marayso maamulka Mareeg State waxaan inii sheegayaa walaalahayga la magacaabay iyo inta banaanba inaan caadifad loo fiirin ee loo fiiriyo qof wax qaba karta inaan dheer hebel aan iskaga darsano laakiin loo fiiriyahay hebel wax ma qaban karaa inaan ka duunaano maamulada jira inay Mareeg State example u noqoto la yiraahdo Mareeg State oo kala samaysanayna waxaan kala aaminsanahay cid walba inay hoos iska soo dhisto gurigeeda hoos ka soo dhisato la isku yimaadaan bareelada weyn Soomaaliya waxaan kale inii sheegaa Mareeg State hoos maanayso dawladda Soomaaliyeed aan ka midnahay dawladda Soomaaliyeed Mareeg State ka mid tahay inaan ka qayb galno shirarka dawladda Soomaaliyeed ee lagu casuumayo maamul goboleedyada Mareeg State ayadoo mathalaysa Mareeg State
halkan aan joogno waa elaboorka ku yaala magaalada London ee Heathrow waxa lagu soo dhaweynayay madaxweynaha maamul goboleedka Marek State oo ka yimid dhulkii Soomaaliya sidoo kale waxa lagu soo dhaweynayay aasaasihii maamul goboleedka Marek State dad fara badan oo taageersan oo ka mid ah jaaliyadda Marek State ayaa halkan taagnaa muddo dheer waxaana ay u taagnaayeen soo dhaweynta madaxda Marek State Abdirasaaq Socoto Universal TV London